بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaa dariskeenu ku saabsan yahay siiradii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wax ka mid ah. nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ah acdamu insaanin mara fi taariikh, qofka bini aadamkaa ee ugu weyn ee taariikhda reer nebi aadam oo dhan soo maray soona mari doona. oo uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo xadiidka ka asaxay ku leeyahay: ana sayidu waladu aadam. anaa sayidu ah intuu aadam dhalay, walaa fakhr, faanna kuma jiro. waynu leenahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa hogaamiyihii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa mar labaad ee taariikhda bini aadamka ee la hayo qiimaynteeda, xataa marka lagu qiimeeyo waxyaabaha bini aadamku wax ku qiimeeyo aan loo eegin rasuul iyo nebinimadaba, haddana la leeyahy waa acdamu insaanin fi taariikh. sidaa awgeed buu ninkii maraykan ee Marshall Head buuggiisii uu ku tilmaamayay boqolkii qof ee taariikhda ugu influentialka badnaa ama ugu raadka badnaa, wuxuu ku tilmaamay kow nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, isagu isticmaalayay maqaayiis bashariya ama miisaan bini aadamiya. sidaa awgeed taariikhda la hayo qofkii bini aadamka ahaa ee ugu weynaa in saacad ama laba saac ama wax la mida lagaga warramaa runtii waa wax baciida, waa wax durugsan. hase yeeshee waxaynu isku dayi doonnaa inaynu tilmaamo yaroo kooban ka tilmaamno, maadaama aanay marnaba suurtagal ahayn inaynu kaga warrami karno wakhtiga intaa leeg. waayo kan rasuul wuxuu ahaa rasuul ku guulaystay wixii loo soo diray. wuxuu ahaa madax dowladeed, madaxweyne ku guulaystay dowladdii uu madaxda ka ahaa, oo muddo yar oo 50 sanaba ka yar ay dunida inteeda badan ku qabsatay. wuxuu ahaa ka qaa'id caskari, hogaamiye dagaal mid ah oo ku guulaystay hogaamintiisii dagaaleed. wuxuu ahaa qaadi ummad kala xukumo oo kala saaro cadaalad ku xukuma, mid ku guulaystay. wuxuu ahaa imaam iyo weli ilaahay oo wax caabuda, oo alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa kii dadka tusaale ugu ahaa. wuxuu ahaa aabbo haween xaasasa iyo guryo leh oo ku guulaystay maamul guriyeed. wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nolosha in every aspect, qayb kasta oo nolosha ka mida qofku guulaystay. sidaa awgeed bay cidhiidhi noqon doontaa inaynu isku dayno hal muxaadaro inaynu kaga warranno, laakiin biidni illaahi tacaala waxaynu isku dayi doonnaa inaynu muqhtatafaad kooban oo macaalimtii loo xadiday dariska kan ka mida aynu tilmaamno, oo ku saabsan dhalashadiisii, murdaca ciddii naas nuujisay, meeshuu ku koray, qaabku u koray, haweenkuu guursaday, iyo
وحوغا كمدا مراحل دعوتي وهرين الله سبحانه وتعالى وحلي وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي سبحانه وتعالى وحو أبورا وحو دونه استغان الدور الشضله ولذلك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي بأبوري دورتينه الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سبحانه وتعالى إسقى إياه حيث يجعل رسالته ماشي ودغيو الرسالة ديسا أما عدة الرسول دورانيو مواصفات كإلهي يوحو قد دورانيو إلهي سبحانه وتعالى إسقى يقانا ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكوت المام يا حديث كبخاري كسغن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه إلهي قبيلك كنانة الله يدهد يكدر نبي إسماعيل انتو دلي كنانة قريش بكسي دورتي انت قريش ككوبنا انت كنانة ككوبنا ان قريش بقى لك كسي دورتي قريشنا رير بني هاشم بقى لك كسي دورتي رير بني هاشمنا انو ايقا دورتي بو النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه اذن تفيرتي سيعد كتر سنان هي قبيل كيس الهي بقى دوري سبحانه وتعالى زمنك إيا ماشا وكصاب حينا إلهي باودوري سيدا حديث كي بخاري ولاي بعثتم من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه إلهي سبحانه وتعالى قرونتي غير نبي آدم وصامر كلا قد سنيدا أزمنة دا هينا هل كي يوغو زمن كي يوغو في عناب الله سبحانه وتعالى كدورت إذن وحا هذو نصب سيدا حديث كلام بخاري هرقل مركو وريسنا يا ابو سفيان وتلمامي وحوها مid reerkooda la doortay isagana laga sii dhex doortay وحوها mid zamankiisa la doortay zamankii uu joogayna waqtiyada kale ilaahay uu ka doortay subhanahu wa ta'ala وحوها meeshu ku dhashay ka soo baxay mid la doortay oo Makka ah oo ilaahay beledkiisa meeshu ugu jeceliyay saa xadiiska kale nabiga ku sugan salawaatullaahi wa salaamu alayhi سيدنا وضع نقانه مقعيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى رجل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان انت ابترسين تا ان شيغي اهل التاريخ ويسكوا فقسين عدنان يا اسماعيل انه من ولد اسماعيل هانا عيد كما مرنسنا انت ورد حيث تاريخ يهندو ويرك لقديسان بيت المامان اسماعيلين وين ابراهيم هانا ولا يقانا ابراهيم يا ادم انت ورد حيثنا تاريخ يهندو وحيابك لقديسان بيت المامان اذن الا يا قبيلك عدنان لا يراهدو عرباد انو كابتر صدو عدنان انو ولد اسماعيل كمد يانا والله با او كابتر صدو النبي اسماعيل وين ابراهيم وحي كدن بينا ابراهيم inuu soo socdo aadam gala wallahu laakiin labada aynood inta ka dhaxaysa taariikhiyahanadu ma sugan yaani si cad loo garan maayo waa inuu reer cadnaanaha dabeetana uu quraysh kamid aha quraysh yaa loo oran jiray taariikhiyahanada bar waxay yiraahdaan an-nadr ibn kinana kinanada tan qabiil ka tirsan an-nadr la yiraahdo ayaa quraysh loo oran jiray taariikhiyahanada qaarna waxay yiraahdaan maya نظر ما هو إنك ووجا وها هو فهر ابن مالك ابن نضر وفهر كبيلين كأه قريش كدنبان يوبدين تاريخي هندو قريشين فهر كيه
نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أبترسين تيسا الله يقارنا لقرنا يواطاه هو يدينا إيانا وقريش وآمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب لؤي ابن غالب كصوغ شاينا وكلاب ابن مرة ابن لؤي ابن الغالب أيدي حتى كسهر وبرة بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي لما أنتو مع أيوينكي وقريش أيدي سنمرك الله يقول كاسوا النبي صلوات الله وسلامه عليه مقعسي أبترسينتي سيوحي لقهي قرطة ورشي النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي يقصوغ ياينا السنين هيد والنبي صلوات الله وسلامه عليه حديث تكاصح دي وحو كنت المامية إنه السنين للشيء وحانا ابن قيم ولي وحي اسكودا وافق سين لمنك تاريخ قراء إنه مكة قده هذا كل الشيء سنة كعام الفيل كالله يرهدنا إنه ده شيء تاريخ دي هوري عربات waxay la mid tahay taariikh kastoo dad uumiyana wax qorin waa sida taariikhaha Soomaaliyeed oo kale gugii waxaasi dhacay dayrtii waxaasi dhacday gugii saala noqday waagi barwaaqada ahaa dayrtii hebel la dilay waxyaabaha Soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale abaaraha iyo guyaasha iyo wixii la mid dhacdooyinka inkastoo taariikhda bini'aadamku sideedaba dhacdo uu lagu tiriyo dhacdooyinka kamida hatta tan miilaadiga aynu hayna miilaadu Ciisa bay leeyeen ba laga bilaabay dhacda lagu tiriyay laakiin taariikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carabka ahayd ee ahaa caamul fiilk sanadkii loo yaqaanay inuu nabigu dhashay salawaatullaahi wa salaamu alayhi sanadkii maroodiga ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سنة كمرودقنا وكال القرآن كقور رميه أصحاب الفيل وسند إنه نقالنا إن من حبشي كعبضة يكسو وررين مروديال ستاريخ نكته تاريخ ذاك اللي بني آدم كيم كالاتريا سنة كاسي حقوق بيجنا قار واحد عن شنب غلي التضباطا قارنا شنب غلي كوبي التضباطا كيبو بيجنا بشهور دشيتابة هي تاريخ يهند وحي شاقارنا هي الربيع الأول ربيع الأول سنين تاسي حقيقة قد عيسي ونبي قد شيء أقوال بالسواء أرورية مش اللي بدأ يدسيد أقوال بالسواء أرورية وقوم مشهور سيئة مسي وقوع عن سيئة هي قولك الشيء يلا بيه طبعا كي الربيع الأول هي لكن بالضبط ما هي مسائل اسكوا فقسية قوى صرمي ومسائل علماء التاريخ أراك لقد سنة كتل مامان لكن سيدا مشهور كا سيدا عام بحضي وإنه لبي طبعا كي الربيع على ولا شيء تاريخ ميلادي أبريل سيدا ودات كي محمود باشا الفلكي وكتل ماما يا أبريل شم غلي كوبي تضباطا كي أبريل حقيبه وكذا شيء سوى أبريل لباتن كذا لبي لا تندى ده ملاها صوت الماما يرك لنا ما الوكالة الماما يا ويسوى أبريل لباتن كذا لبي لا تندى ده waxuu ku saleynayaa isniin sagaalkii rabiicul awal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo ala kulli xaal nabigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa inay ahayd caamul fiil taariikhyahanadu way isku waafaqsan inta wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa taariikh siyaaba kala gedisanay tilmaamaan markii uu dhashay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yaa naas nuujiyay ثويبة قبل لورن شري مولاتك وهيد أبي لهب ولها أي الناس نوجسي وأنا كالنبي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري كنت المامين ثويب الناس نوجسي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة من النبي يقول أنيقا يا أبا سلمة صحابي لورن شري وحنا الناس نوجسي بالنبي يقول ثويبة ثويبي وحي كلو الناس نوجسي حمزة ابن عبد المطلب ونبي قادير كيه وكا حديث كلام بخاري نبي وكنت الماما يمركي اللي يرين انتي سقورسو لا تحل لي إيما بنانا
وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هي ابنة أخي في الرضاعة أبو نبي قليه نسب كوحكم ممنوعة يعني دمر كان نسب لغو قورسان كرين أيان يغانا لغو قورسان كرين أبو نبي قليه هذا الناس وذا النوكتين وانا إننتي ننكي أنو الناس كوذا النوغني يا أذيرك حمزة مركا ولال بقلاها الناس نوغ نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إنay markaa Thuwayba naas nuujisay waa la isku wada waafaqsan yahay culimada taariikh waxay kala tilmaamaan Halima Saadiya gabadh la oran jiray oo Saadiyada iyana inay naas nuujisay muddana baadiyaha ay ku haysay 4 sano meelaha ku dhadhow oo halkaas ku soo koray nabiga sallallahu wa salaamu alayhi nabiga sallallahu wa salaamu alayhi asmaa badan baa u soo arooray magacyo badan inuu leeyahay magacyada qaar waa sifaat nabiyada kalena la wadaagaan isaguna uu ugu si fiican yahay kamaalku sifooyinka kaleeyay qaarna waa asmaa isaga ku gaara sida xadiidkii saxiixaynka ku yaala uu nabigu lahaa li 5 asmaa ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadamay wa ana al-aaqib نبي صلوات الله وسلامه عليه وحتى إنه شن مقع عليه حديث كان صدق قرنين محمد يي كيل مهدي حمد إنه مقع كلمة محمد كيل مهدي كي آت كلمة هدي إنه يهي إنه أحمد يهي إسنا وكيل مهدي أدينه فوزن فاعل ككأنه labada midna waxay yiraahdaan waa kii aadka loo mahadiyay midna waxay yiraahdaan waa kii sifaadka badan lagu mahadiyay ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr waxana haybu nabigu leeyahay al-mahi kii masaxayay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku masaxay gaalnimada waxana ay ka soo ururinaya xashrinaya ee dadka qiyaamaha cagayga lagu soo xashrinayo wa ana al-aaqib waxana ay ka gabagabaynaya ka cidbinaya ee nabi baka dambaynin أسماء كلنا وصارت النبي صلوات الله وسلامه عليه تاريخ ذا يرانتيسه حديث صحيح مسلم كقصوغا وكان ابن مالك تلمام يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه سقو يرأو عرور لعياريه إن ملائكة قبطي وأي لقدي وأي دبتنا لابتي سد الله عسي وأي ودنه سسيرجري كصميسي وأي حنجر يركسو صارتي ويكتر هذا حظ الشيطان منك تاسوا قيبت الشيطان كوكولها تمعنى هذا أي تهي تصفية إلهي وسمي أما تزكية قلبك سلسفية تبع ترى يوم ما يدعي وماشي سيوقع لسي أو سيدا سكو كعي أو لا هي أنس بن مالك سيدو إمام مسلم ورينيو وقد كنت أرى أثر المخيط في صدري waxaan haabulay mid arka meeshii malagu ka qalay operation ka laga sameeyay hatta waan ku arki jiray buu leeyahay nabarka jirkiisii ilaahi ba taahir yeelay subhanahu wa ta'ala abihi nabiga sallallahu wa sallam alayhi wuxuu geeriyooday isagoo uurka ku jira hooyadiyo xaamila ayuu abihi geeriyooday say culimada taariikh sheegayaan kadibna hooyadii ayaa geeriyootay meesha abwaa la yiraahdo iyadoo Madiina ka timo Maka ku soo socota meel dhaxo abwaa la yiraahdo sida xadiiska nabiga sheegayay ziyaaradii uu soo booqday xabaasheeda halkaas bayna ku geeriyootay abwaa isagoo lix jir meelahaas iyo nabigu sallallahu wa salaamu alayhi dabeetana nabigu wuxuu soo koray isagoo agoon ah aabba aan aragba hooyana isagoo yar oo 4 sano markii murdacadu baadiye ay ku haysay si carabkiisa iyo waxaas uu af carabigiisu uu soo hagaago markii la soo celiyay 2 sanadood hooyadii la joogay hooyadiina dhimatay wuxuu soo koray nabigu sallallahu wa salaamu alayhi isagoo yatiimil ab iyo wal ummi labadaba isagoo agoon rasmi ah markii dambana rajaynimo ugu biirtay quraankuna waa ka ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala في سورة الضحى وكان الله سبحانه وتعالى كتل مامية إن أغني موك كوري
intaa kadib wuxuu galay gacantii awowgii cabdilmuطalib oo aad u jeclaa awowgiina markuu 2 sano hayay buu isna geeriyooday idan nebigu yaraantiisii axaasiis tiro badan oo waalid la'aana buu la soo koray dareen ah inuu aabba waayey oo hooyo waayey oo haddana awowgiisii soo korinayay waayey waa 3 waalidkii ka mida inuu la'yahay waa dareen runtii qof intaa maray inuu dareemi karayo kadib 8 jir markuu soo gaadhay ayaa haddana adeerkii abu aalib oo carruur badanna haystay xoolo caynkaas iyana aan lahayn baa soo koriyey abi aalibna muddo ayuu ilaalinaya soo korinayay kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in kooban oo ka mid ah taariikhdii dhalashadiisa iyo koritaankiisii hore marka aynu eegno sifaadkiisii khalqiga ahaa iyo qaabku u ekaa in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa'i alxadiid ay sifaadka khalqiga ee nebiga tilmaamaan masaa'il sharciya ku xidhan baa xataa jirta nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay qofka igu riyooda wuxuu i arkay fakaannama yacnii shaytaanku ima matalay xaqan buu ii arkay laakiin culammadu waxay yidhahdaan waa haddaad ku riyooto isagoo sifadiisii leh nin madow haddaad iskaga riyooto tidhaahdo nebigii oo lagu yidhaahdo waa nebigii aada dhow tidhaahdo xalayta nebigii baan ku riyooday waxba kumaad riyoon weeyaan nin madowbaabaad ku riyootee nebigu ma madoobaynbe idan si aad u hubiso ciddan aad ku riyootay inay nebigii tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu nebi moxamed iyo inaanu ahayn waa inaad taqaanaa sifaadkiisii khalqiga ahaa sifaadkay muxadisiintu ka sheegeena tilmaamaya sidii u ekaa marka aad garato sidii u ekaa hadduu riyada kugu yimaado markaasaad garan kartaa inuu kani nebi moxamed yahay suurada caynkaa u eg baanu shaytaanku isku matali karin ama inaad uun wadaad duub la iska aragto cumaamad xidhanoo kuwa lagu yidhaahdo waa nebi moxamed inta badan dad badanoo ay dadku arkaana noocaasa isaga badan yihiin waayo nebiguba si ay u eegyihiin ma yaqaaniin wixii ay arkaanba waxay moodaan inuu nebi moxamed ay ku riyoodeen inuu yahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidaa awgeed bay culammada muxadisiintii waxay aad u tilmaamaan sifaadkii khalqiga ahaa abuurka ahaa ee uu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa nebigu nin dhexdhexaada oo aan dheeraynna gaabnaynna labada dhan hadday tahay xagga dherarka xiga laakiin aan nin gaaban ahayn jooggiisa marka la tilmaamo waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xagga hilibka qof dhexdhexaada oo aan qof dhuubanoo caata aan ahayn qof buuranna ahayn waxaa tilmaamtiisa kale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laabta nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaadhan leh timo yar oo halkan ilaa xudunta liid yaroo timaa ku leh ilaa xudunta ay xidhiidhiso waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma uwa mataana weynaa gacmihiisa iyo addimadiisuba waa weynaayeen oo gacmo nineedoo ragga ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa gacan kala baxsan oo aan gacan yaroo kooban ahayn oo haddana jilicsan yacni aad buu u sacbiyo gacan jilicsanaa baa la yidhahdaa marka la salaamo ama la taabto wuxuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidhibta addinka bay yidhahdaa mid aan hilib badan ku lahayn garabka xagga bidixda xiga labada garab dhexdoodoo xagga ka bidixiga wuxuu nebigu ku lahaa meel yaroo kuusan oo leeg beed xabad beed oo yar oo timo urursana oo ah khaatamu nabuwa shaabadda nebinimada waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wejigiisu miduu aad u qurux badan yahay caddaan mashruub bilxumra bay yidhaahdaan weji cad oo aan xoosh cad ahayne casaan uu ku jiro bay yidhaahdaan weji caddaan uu ku jiro casuuse ay ku jirto casaan noocahi uu ku jiro oo flowerka oo kale abyadkan midabka yara casaankii uu ku jiro oo kale ayuu nebigu ahaabaa la yidhahaa midabkiisa wejiga marka la eego qaabka wejigiisu mu ahayn mustatiil bay yidhahdeen wuxuu ahaa mustadiir mid wejigiisu uu wareegsan yahay
dhabankiisu uu shuban yahay oo isleegyo aan kala dheerayn koodadkiisa iyo dhabanadiisa iyo intaasi waxaa bay dhahay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma afyarayn ee afkiisu waa roona waa sicilfam ayuu ahaa ma indha yaryarayn indhihiisu si fiican bay u ballaadhnaayeen waa indha jeexna waxaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu aan ahayn kuwa sii wada daasan oo timaha tooska ah ma lahayn timaha aadka jacwadada badan leh yacni duuduubka badan lena ma lahayn timo sii daysan laakiin yaro laalaabi kara garaarimo yaro aan badnayn leh ayuu lahaa timaa wuu la bixi jiray mararka qaarkood ilaa halkan shaxmatiludun dhegta laalaadkeeda tan ayay timihiisu gaadhi jireen mararka qaarkoodna waabuu sii dayn jiro ilaa garabka meelaha kan garabka agtiisa meelahan bay gaadhi jireen timihiisu sidaa wuu u feedhan jiray dambe oo timaha waxaynu xagga dambe isaga sii rigo mararka qaarkoodna wuu kala jeexi jiray yacni halkan dhexe intay ka kala rogmaan bay labada dhinac ay u kala rogmi jireen dee maaha saa tima weynteenna kuwan hareeraha u baxeen qofkan timaa jirecsan leh qolyahan in la joognay waa aragtay timahoodu inay marka halkan dhexe laga rogo tima caadi u rogmo oo caadi u dhaadhaca inay leeyihiin nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi gadh kafiifa buu lahaa wuu gadh weynaa intan oo dhan gadhkiisu wuu buuxin jiray wuxuu ahaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu ay feedhan yihiin oo had iyo goor timaha ilaaliyo aad u feedha ciro ma lahayn badan xataa markuu geeriyoonayay ciradiisa waa la tirin karayay bay yidhaahdaan midhadh ayuu madaxa iyo meelahan ku lahaa ciro tirsanta oo kow laba saddex loo odhan karo ilaa iyo intuu ka dhimanayay ciro caynkaasiya ma lahayn ee timihiisu madowgaas bay ahaayeen mararka qaarkood waxay dhaheen madowga casuus baa ku jirtay gadhkiisa iyo kuwa kan nooc min casaana tiibkii badnaayee uu marin jiray daraaddeed bay yidhaahdaan yacni wixii udgoonka ahaa ee tirada badan ee uu sameeyey nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh noloshiisa waxaa caan ku ahayd inuu aad u nadaafad badnaa oo maydhasho iyo isnadiifintiisu inay badnayd feedhashada timihiisa iyo ilaalintiisu inay wanaagsanayd طيبك وحن لا يسمريه أدوك إنه نبي استعمال شري صلوات الله وسلامه عليه ويسحبه يقانين دون نبي مال فرستا عارفين إنه نبي كفلين ماشي وصاف فرسته إنه يسووها إن شيء عرفته كسو أدوك كسو بحين يسووها إذن علماء واحد هذا كمال الخلق بلها نسمة شديد وقرح بدن بالنبي لها صلوات الله وسلامه عليه يعني نين ميل تاجن oo qurux badan ninimo buu ahaa marka la tilmaamo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyada duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo siduu uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo siduu ula dhaqmi jiray maamulka iyo siduu ula dhaqmi jiray dagaalka iyo siduu ula dhaqmi jiray marka la eego nabiga dhaqamadiisii cibaadaadkiisii akhlaaqiyaadkiisii marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin وانا حديث مسلم كي لا عائشة واطله كان خلقه القرآن نبي صلوات الله وسلامه عليه مركي اللي ويديه أخلاق ديس ده قرآن صعنا يبوها بيلاد قرآن أي أخلاق ديس هاي وحنا أقف لنا أخلاق ديس وحي هيدين إلى هي قرآن كوكت المامي سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وحد قصوا أنت يبقى اللي سبحانه وتعالى أخلاق كريسة جملة اسمية مؤكدة بأدوات التوكيد إن الله وإنك لعلى خلق عظيم وحط كسو أنت يبالي سبحانه وتعالى أخلاق أوي جملة اسمية أولي بالسيسي فيه عظيم لغسي فيه ويركوا هدين كتل مامنا وحيد هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحوها أن متواضعة سر الدقة ومتواضعة لكن تواضعة أي لسعة طبعا هيبة يدتك هدرك هيبة يستان سقوا متواضعة أو سقوا سر الدقة لكن إنكم أنتوا يمي مركو يسر تاجي وقريري أو نبي كويري محل لقريري سا أنا وحنا هاي هميد هو يدي أي قديد كعوني شرتي قديد كوا هيلي بقيدين وأنت الله ورده يترى الله عنا هذا وهو رسلان قديد كعنتاي ده شيء بده بيقول وحبا قربانين إذا بتواضع صوت ربنا وحنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بو حشاد بدنا جيسي هدنا وها
هل قلت الماما إنه وقعن في الرايو ديغسيها هدنا كديرا اسمه جنتا يما عراد انت وحعان كواها يبلشدا يكون قاني أمانة ده وحعان كواها الصدق في القول والعمل مدرون شيغا عمل كيسنا كرون شيغا هذا الكيسنا كرون شيغا وحعان كواها نبيقو الزهد في الدنيا عند إقبالها مid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayh xilliyadii dawladda islaamiga xoolaha badan ay heshay isagu haddana xasiir yar oo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nabigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday maxaa aniga macmacaankeediiyo waxeeda iga galay tilmaamayay إذا مركي دونيدو سوق بشو متك الزاهدة وأن فرشان تهريرا اسكا دغدغنو اسكا دالالين بو النبي صلوات الله وسلامه عليه مركا غعنتو مرانتي دونيدو اي جيستنا ميدان هنغوري بدنينو اسكا دبر ريدين سيدي خوله لو هلي لها ايها النبي صلوات الله وسلامه عليه وها ميد اعماشي سودن الهي وخالص ياله وها النبي صلوات الله وسلامه عليه عربك يا أفك مداد فصيحة والدجن وسيد هضله والصحابة قاركود إلى النبي محمد هداد استراد هذا الكيس تري واترين كريسي لكن سجى إلهي ده وحسي جوامع الكلم هلا ترين كريه هذا القوبان ومعنا بالله له أيكو هاد ليه وكمدها وحيابي إلهي كقاري يالي وها ثابت الجنان مد قلبي سمركز تو الدجن هي وأن بقاها أقون haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la yihiin mar walba qalbigiisu uu degan yahay waxa nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi nin xakiima oo caqli badan waxa nin intelligent ah oo xusn alfahmiya oo aad fahamkiisu uu sareeyo waxa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay waxa nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sareyso oo saadaradeed dadka cafiyo iska dhaafa oo ka xumaha sameeyo u dulqaata wuxuu nabigu ahaa mid ka dheer adayg iyo qalqalafsanaanta iyo adadkaanta wuxuu ahaa nabigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayhi khuluqiga hina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeenu uu tilmaamay yahay ee aanu daris noqon karaynin noloshiisa markaynu eegno wuxuu nabigu la koray sidaynu ka arkayna taariikhdiisa nolol xayaati alcamali walkadx nolol shaqo iyo adadayg wadata oo aan nolol raaxa iyo dhaldhalaal ku bilaabantay aan ahayn yani nolol adadayg ku bilaabantay buu nabigu la koray maadaama isagoo uurka ku jira aabihii dhintay hooyadii isagoo 6 jira dhimatay awowgiisii hayay isagoo 8 jira uu dhintay abi taalib uu la soo koray abi taalib waqtiguu la joogayna xadiista nabiga ka saxday yani xadiiska bukhari waa ka tilmaamaya nabigu inuu yiri ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam ilaahay nabi ma soo saarin ilaa ya aribu raa'ay markaasay asxaabtii waxay ku yiraahdeen wa anta ilaahay rasuulkiisa oo adigu miyaad ari raacday فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة هاي قراريط بانكو راعي بو النبي قول غير مكة وقول راعي روايات كلنا وسؤال روريان مركا لاسكو صدر علماء الحديث وحيد هذان أديرك يا أبي طالب عاونتو عاوني وحوقاقي حينتي يريد وهيستين وقول راعي النبي صلوات الله وسلامه عليه مركو يراه إسلا مركا حولك لو قدر صدينا وقول راعي النبي وقراريط كوحيلين والعق jajabka yaryar ee lacagta qayb ka mid ah ayuu ku raacay marka waa ujra yani inuu shaqaale noqdo isagoo yar oo uu xoolo raaco shaqo ka shaqeeyay culimada qaar baa yidhaha qaraarid waa makaan lacagba ma aha waa meel maka u dhow waa ka laakiin muxadisiintu waxay u badan yihiin inay lacag tahay si awgeed buu bukhaari baab al-ijaara buu ku soo aroorinaya xadiidka markuu warramayo baabka ujrada
أن علماء waxay kaloo sheegaan racyi al-ghanamka in xikmad badan ku jirto oo adhiga iyo raacistiisa iyo ilaalintiisu inay ku dhadhowdahay ama soo dhiganta bini'aadamka iyo ilaalintooda iyo raacistiisa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yaraantiisii buu shaqadaasi bilaabay oo wuxuu ahaa mid yaraantiisii nolosha adag ku soo koray dhalinyaranimadiisii waxyaabaha taariikhdu ka sugta waxa ka mid ah taariikhyahanadu waxay sheegaan laba heshiis oo midna xilful fuduul loo odhan jiray midna xilful mutayibiin inuu galay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi taariikhyahanada qaarkoodna waxay dhahdaan labadan xilfi isku mid uun bay ahaayeen hal heshiis uun bay isku ahaayeen waxaana ku soo arooray xadiidku nabigu leeyahay salawaatullaahi wa salaamu alayhi شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه إنه نبي صلوات الله وسلامه عليه وحان كقيب قلي هشيسكي أما قاشان بورتي مطيبين وحان كلا قيب قلي أدير رضيب النبي قلي anigoo wiil dhalinyaro ah mana jecli heshiiskaasi aan waagaa galay inaan marnaba buriyo xataa geel cascas haddii lay siinayo heshiiskan culamada taariikhdu xadiidkan imaamu axmed iyo bukhaari fi ladab almufrad ba waa soo arooriyey xaakim iyo tabraaniba heshiiska kani waxa uu tilmaamayaa qabaa'il carabtii maka deganayda ayaa waxay isugu yimaadeen rag waaweyn oo ka midi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu jadcaan nin maalqabeen oo tujaartii waaweynayd ee reer maka ka tirsan gurigiisa la isugu yimi waa heshiis lagu galay magaalada maka la yidhaahdo haddii cid lagu dulmiyo in loo hiiliyo ciddaan tolya maadaamay magaalo baac mushtar ahayd dad baa iman jiray baac mushtar oo xoolo keensan jiray dadkaasi baac mushtarka ah haddii aanu ama abbaan ku lahayn magaalada iyo cid wakiilka ah oo uu dee magaciisa ku daaqayo wax ku iibinayo ama aanu reeraha meesha u dhashay ahayn waxaa dhici jirtay ragga waaweyn ee tujaarta qaar ka mid inay iska dulmiyaan culamada taariikh waxay sheegaan nin yaman ka yimi oo meesha yimi oo nin nimankii waaweynaa carbeed ka mid uu dhacay oo dafiray oo dabeetana gabay tiriyey intuu kacbada tagay oo gabaygii uu tiriyey uu kaga warramayo jaarka kacbada raggiina ahay dulmiga inay iska daysaan oo caynkanoo markaasi sababtaasi ay dhalisay xilfiga ninkaa gabayaagaa gabayiisa sababtay doontaba ha noqotee wuxuu ahaa heshiiska kani heshiis ay galeen odayadii quraysheed rag ka midi cabdillaahi ibnu jadcaan ninka la yidhaahdo gurigiisa lagu galay oo mucdad heshiiskanina uu yahay inay qofka la dulmiyo wax ka dhiciyaan oo ay uga qaadaan qofka daalimkaa wixii hanti iyo xoolo uu ka dhacay inay uga qaadaan ballan ah ayaa meeshaasi lagu wada galay ballankaasna nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi isagoo dhallinyaro ah ayuu adeeradii kala qayb galay waana ka tilmaamaya maantana inaanan marnaba buriyeen waayo qiimatu alcadaala waa qiima insaaniya ma kala leh inuu muslim galo inuu gaal galo in cidda cadaaladda qofka muslimka waa inuu u taagnaadaa wixii cadaalada gaal iyo muslim iyo cidday doontaba ha noqoto qofka muslimka ahi cadaaladun buu yaqaanaa cadaaladdaanu taageeraya in allaha ya'muru bilcadli walixsaan ilaahay cadaalad mutlaqu ina faray wixii aynu ka awoodno idan qofka muslimka ahi cadaaladda mar kastaba waa inuu u taagnaadaa nabigu dhallinyaronimadiisii salawaatullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha taariikhda qabla albictha ka mid ee la tilmaamo waxaa ka mid ah inuu guursaday gabadhii la odhan jiray khadiija bintu khuwaylad oo ahayd qof dumara oo carmal ama garoob ah oo hantiile iyo xoola leh oo xataa sida taariikhyahanadu ay sheegaan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh hantideedii uu ugu baac mushtareeyo ka shaqeeyey tijaara uu ku kaxeeyey gabadhaasi wuu guursaday carruurtiisa intii ugu badnayd yacnii ibraahim oo maariya alqibtiya gabadhii la odhan jiray ee boqorkii maqooqas ee masareed uu soo hadiyeeyey mooyaane carruurta inta kaleba 4 hablood
iyo labadii wiil kalaba waxa uu dhalay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh khadiija dhashay dadka waxa caan baxday ra'yiga waaqidi oo ah khadiija 40 jir buu ku guursaday ibnu isxaaq laakiin wuxuu leeyahay 28 jir buu ku guursaday in khadiija markaasi 28 jir ahayd aqligana waxa ila dhow inay 28 jir ahayd waayo 40 jir inay 6 caruur dhashaa ma fududa laakiin 28 jir 6 caruur waa dhali karaysa waxaana muuqata khadiija inay 6 u dhashay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh labaduba biduuni sanad baan rajaynay inay ku soo arooriyeen min hayth sanad haddii la taxqiijin lahaa qaabka xadiidka midina sanad fiican ma haysto laakiin waa laba qowlo ahlu taariikh midna waaqidi uu soo arooriyo midna ibnu isxaaq ka ibnu isxaaq baana caqliga u dhow maadaama ay khadiiju u dhashay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh 6 caruur ay u dhashay qaasim iyo zaynab iyo ruqiya umu kalhuum iyo faatima iyo cabdallah oo kii ugu yaraaya waa 2 wiil iyo 4 hablood qaasim oo ugu weyn bay leeyiin taariikhyahanadu waa isku khilkhilaafan caruurta kee weyna qaar baa idhaa zaynab baa weyn qaar baa idhaa qaasim baa weyn way isweydweydaariyaan laakiin sida caanka ah iyo goor waxay sheegaan qaasim baa weynaa waxaana ugu yaraa cabdilaahi oo cabdilaahi taariikhyahanada qaarkood waxay idhahdaan fii cahdi alislaam buu dhashay walidaalika baa atayib taahir loo bixiyey bay leeyiin cahdi nubuwa ayuu dhashay bay tilmaamayaan waa un 6 caruura laba inan labada dacal xigaan iyo 4 hablood oo dhexda ku jira 4 hablood iyo labada inan faatima marka laga reebo iyo xataa ibraahim oo maariye dhashay 6daasiba waxay dhinteen intuu nabigu noolaa salawaatullaahi wasalaamu calayh caruurtiisii 6 ka mid isagoo nool buu nabigu aasay waxa isaga ka geeri dambaysay oo qura faatima uu cali qabay iyana 6 bilood bay nabiga ka dambaysay nabigu markuu geeriyooday 6 bilood kadib ayay iyana geeriyootay idan 6 bilood geeridii nabiga kadib wax nabi maxamed dhalay salawaatullaahi wasalaamu calayh oo isagu toos u dhalay ma noolayn taariikhda dhalinyaranimadiisa haddaynu wax kale ka tilmaamnay qabla nubuwada waxay taariikhyahanadu sheegaan carabi mar inay ku heshiisay in kacbada la dumiyo oo dib loo dhiso sababaa keenay bay yidhaahdaan daadad jiidhay waxyaabo cilal bay sheegaan marka intay dumiyaan inay dib u dhisaan oo ay weliba lacag xalaala ku dhisaan waa dumiyeen lacagtii xalaasha ahayd ee mala lagu wada dhisi lahaa waa la waayey in baa laga kacay waayo xajarka intan yaree xijru ibraahim inta yaree imaka kacbada ku aragteena seerkalka yare sidaasi waxay ka mid tahay kacbada lafteedii in daarta la geliyaabay inta daartu ka dhisanta laakiin quraysh baa waagaa ka guurtay maadaama lacagta ay ku yaraatay oo space ka yar ayay dhistay marka in baa bannaan ilaa hadda intaa ay dhistay qurayshi markii la soo gaadhay xajarul aswadka iyo meeshan uu kaga jiro in la saaro ayaa quraysh isku qabsatay dee qabiilkii sharafta qaadan lahaa xajarul aswadka qabiilka meesha galiya dee sharaf dheeraad u sheeganaya markii dambe waxay isku waafaqeen ninka ugu horeeya ee albaabka inooga soo galahayna kala xukumo sa taariikhyahanadu sheegaan nabi maxamed baa ka soo galay albaabkii ay sheegayeen salawaatullaahi wasalaamu calayh waxay qaateen inuu yahay alxakam ilamiin mid lagu kalsoon yahay xukunkiisa isna taariikhda xukunkii ku caanbaxay buu u qaaday inay go' dhulka dhigaan dabeetana dhagaxa la saaro la qaado meeshii marka la gaadhsiiyana isagu intuu ka qaado uu meesha geliyo marka qabaa'ilkii oo dhammi waa wada qaadeen meeshiina waa la wada geeyey cidana cid marka aanay ugu sheeganin waxaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhallinyaranimadiisaasi uu ku caanbaxay asaadiq alamiin mid run sheega oo amiin oo la yaqaanin ahaa oo xataa markuu hijroonayay iyagoo la dagaalamaya inay wadiicooyinka iyo alaabta u dhiiban jireen runna ay ku yaqaaneen oo markuu fuulay safo iyo marwo muxuu buurta safo markuu fuulay waa sabaaxa u lahaa wuxuu ku yidhi war haddaan idin idhaahdo buurtaa gadaasheeda ciidan baa soo roorayo idin weeraraya akuntum musadiqiin may rumaysanaysaan saanan kuu rumaysan baa ku yidhaahdeen mayadaa been baa idinkugu taqaanay idan saadiq ilamiin baa loo yaqaanay tijaaru ka shaqeeyey waa ka xadiidka saxiixa abi daawuud ee albaaniya uu ku tilmaamayo nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh fatxu maka markii maka la furtay baa nebiga waxa u yimi nin saxaabiya oo la odhan jiray asaayib ibna abi saayib
markaasuu ninka kan baac mushtar bay wada ahaan jiray nebigu wuxuu ku yidhi marxaban biakhi wa shariiki kaana laa yudaari walaa yumaari soo dhowow buu nebigu ku yidhi saaxiibkay iyo walaalkayow waa yacnii wuxuu ahaan jiray buu nebigu leeyahay shariiki tijaarada mid aanu shuraka ku nahay buu ninkani ahaan jiray oo laa yudaari walaa yumaari aan muran iyo waxba toona aqoona nin samax oo tijaaro fiican cagsigana waa la soo arooriyey inuu yacni saayib weedhaha karoo kale lahaa calaa kulli xaal waxyaabuu nebigu ka shaqeeyey waxaa ka mid ahaa tijaarada saa la wada yaqaano taariikhdaasi waa taariikhdiisii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii ka horaysay waxyigu intii aanu ku soo degin haddaan iska raacinno maadaama ay ku jirtay bunuuddii muxaadarada la yidhi ka warran aswaajtiisii khadiija wuxuu guursaday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wakhtigaasi intii aanu nebiga noqonin buu khadiijo guursaday khadiijo intii uu qabayna dumar kale nebigu lama guursanin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan khadiiji nebiga iyadaa marxabaysiis ugu fillayd waxay ahayd gabadh akhlaaq fiican oo dhaqan fiican oo qurux badan oo hanti leh oo wax kasta ku wanaagsan mashaakil oo dhanna nebiga uu ka dugsaday walidaalika isaguna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidna lama guursanin khadiijo keligeed ayuu qabay ilaa iyo intii ay ka dhimanaysay markay dhibatayna siduu u jeclaa wuu xusi jiray caaisha oo ah inanta qura uu keligeed guursaday inannimo uu ku guursaday yacni ayaa jacaylku nebigu u hayo khadiijada dhimatay ayay ka masayri jirtay way ka hinaasi jirtay yacni siduu u xusi jiray nebigu khadiijo uu u hadal hayn jiray haddii uu neef qalo hadduu sadaqo bixinayo khadiijo asxaabteedii ha loo geeya buu odhan jiray ilaa ay maalintii dambe weedho kulul tidhi intay cadhootay ayay tidhi islaan qowlo lacasca soo geeriyootay oo ilaahay inan yar kuugu beddelay unbaad hadal haysaabay ku tidhi markaasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wallaahi baan ilaahay iigu beddelin mid ka khayr yacni wuxuu nebigu tilmaamay inaan cid ka khayr badan oo khadiiji markii dadku i beeniyey way rumaysay buu lahaa nafteedii iyo maalkeediiba way ugu taageertay yacni wuxuu tilmaamaya waxyaabihii ay u gashay khadiija markaa nebigu cidna lama guursan intuu qabay carruurtiisoo dhanna iyadaa u dhashay marka laga reebo maariya alqibtiya inankii ay dhashay ibraahiim ahaa culammadu waxay yidhaahdaan haweenkii muslimiinta oo dhanna iyadaa u khayr badnayd qowl baa jira la ysku khilaafo iyada iyo caaisho kee fadli badnaa culammada badh badani waxay qabaan inay iyadu fadli badnayd qaarna waxay yidhahdaan maya caaishaa ka fadli badnayd qaarna waxay yidhaahdaan waa ka tawaqufaynaa masalada labadaa markay isbarbardhigooda noqoto khadiija waa gabadhii ku caanka ahayd in ilaahay salaan u soo diray yacni isagoo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh malakuljibriil ula joogo ayay khadiijo raashin soo sida ayuu malakuljibriil ku yidhi waxaa soo socota khadiijo raashin sida ee faqra calayha asalaama min rabbiha wa minii khadiijo salaan rabbigeed u soo diray gaadhsii anigana iga gaadhsii buu jibriil ku yidhi idan khasiisaadka iska lahayd ilaahay baa subxaanahu wa tacaala min fowqi sabci samaawaat salaam uga soo diray haweentii khadiijo la odhan jiray jibriilla iga gaadhsii buu lahaa waa qofkii ugu horreeye nebi moxamed rumeeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee markii uu yimid dejinaysay ee rumaysay markay khadiijii ka geeriyootay waynu iska guud maraynaa haweenkiisa wuxuu guursaday qof dumar ah oo da'weynayd oo sawda bintu zamca lo odhan jiray iyana waxyaabaha caan ku ahayd waxaa ka mid ah waa gabadhii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa iyo raalli ahaanshihiisa ka doorbiday markii dambe habeenkeediina ee tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow anugu da' baan ahay waxaan ku siiyey habeenkayga ee dumarkaaga kaad jeceshay caasho ugu jeclaa caashaan ugu daray bay tidhi habeenkayga ee guriga caasho habeenkaana u hoyo wuxuu kaloo guursaday nebigu zawdo dabadeed caaisha bintu abi bakar oo iyadana sida axaadiista nebiga ka asaxday ay sheegayso in riyo lagu tusay gabadha dambe uu guursan doonaa inay tahay caaisha riyo inuu ku arkay dhallinyaranimaanu ku guursaday
waxaanu nebigu kaba geeriyooday salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyadoo 18 jir ah ayuu nebigu ka dhintay waxaanay noolayd wakhti dheer caayishi 58 hijriyada ayay dhimatay wakhti aad u badan ayaa cilmiga laga qaadanayay markay dhimanaysayna waxay sii dardaarantay inuu Abu Hurayra jinaasadeeda ku tukado waxaan u malaynayay inuu sanadka geeri dambeeyay sina 59kii uu dhintay waxaanay ahayd haweenkii uu nebigu qabay tuu ugu jeclaa markii la weydiiyay haweenkaaga ayaad u jeceshay caasha buu sheegay dadka ayaad ugu jeceshay baa la yidhi caasha raggaan u jeednaa baa la yidhi aabaheed buu yidhi waxyaabay gaarka ku ahaydna waxaa ka mid ah inan iyadoo qura ayuu ka guursaday inta kale uu dumarkii kale uu nebigu guursadayba garoob bay wada ahaayeen ama carmal waxyaabay gaarka ku ahayd waxaa ka mid ah marada iyadoo uu la huwan yahay ayaa waxyigu ku soo degi jiray duuna hayriha min annisaa waxay gaarka ku ahayd waxaa ka mid ah ilaahay baa qur-aan soo dejiyey xumihii lagu sheegay ka beri yeelay waxyaabay gaar ku ahayd waxaa ka mid ah dhabteedu nebiga naftu kaga baxday caaishana inahaasaynu isku soo dhaafaynaa wuxuu kaloo nebigu guursaday xafsa bintu cumar bin alkhataab inantiisii xafsa la odhan jiray oo carmal ahayd wuu furay dabeetana dib buu u soo celiyey axaadiista qaar baa tilmaamaysa in la faray nebigu inuu dib u raajacsado intaasi waa asaxday axaadiis marka la isu geegeeyo xasan noqon kartaana waxay tilmaamaysaa sababta la yidhi u soo celi in nebiga la amray oo lagu yidhi innaha qawaamatun sawaama wa innaha zawjuha يوم القيامة أو يعني زوجتك في الجنة إن لقوا يدي سوعلي حفصة واتو صلاة بدن وإلهي أتاغن أو صوم بدن هوينك على الجنة ضاني كتير تابع لقوا يدي نبي صلوات الله وسلامه عليه علماء الحديث كانوا حيود لشدان قفكوا يضعانو ننكي يقبر دعانا يسخو هينين عبادو يسمها يوحاسي مرك قاركود إن يدعي كرتو طبايع دو دين يسير وافق ويدو oo sababa furiinka keenay ka mid noqoto waayo ilaahay baa ku sifaynaya saa xadiistaasi tilmaamayso inay xafsi ahayd qawaamatun sawaama iska soo gudub haweenku guursaday oo muhabiba ka mid ahayd ramla bintu sakhar ibn harb abu sufyan ibn harb inantiisii ramla la odhan jiray iyadana carmal bay ahayd iyadoo joogta ardil xabasha oo haweenkii hijrooday ka mid oo Ethiopia ama xabashida degan ayuu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dalbay in loo guuriyo abu daawud iyo nisaa'i say tilmaamayaanna waa loo guuriyey oo najaashigii islaamay ee xabashida ka talin jiray ayaa meherkiina nabiga ka bixiyay 400 oo diinaar buu ka bixiyey 400 oo diinaar waa Soomaalidu maxay tiraa waxa badan waa ciida wax leeg yani 400 waxaad ku dhufataa 4.25 grams waa de kiilooyo dahab uu noqonayaa waxaa ka mid ah haweenkiisii haweenayda lixaad oo musalama hinda bintu abi umayya oo iyana haweenkii in badan nebiga ka dambeeyey 62 bay dhimatay baa la yidhaahdaa culamada badh baa waxay yidhaahdaan haweenkii nebiga waa gabadhii ugu dambaysay ugu dhimasho dambaysay qaarna waxay yidhaahdaan armay maymuuni ka dambaysay waxyaabahay gaarka ku tayna waxaa ka mid ah waa haweentii aragtay malakul jibriil isagoo leh suurada dixyatil kalbi saxaabigii la odhan jiray saxaabi aad u qurux badan baa jiray oo dixya al-kalbi la odhan jiray oo safiirkii uu nebigu dowladda roomaniska hiraqal boqorkii la odhan jiray ninkuu waraaqda ugu dhiibay nin qurux badan oo saxaabiya buu ahaa jibriil baa nebiga u soo galay oo ninkaas suuraddiisa oo kale leh dabeetana cabaar buu la hadlay wuu baxay musalamuu ku yidhi ma garanaysay ninkani la joogay dee waa dixya al-kalbi baan u malaynayaa bay tidhi ma aha inay jibriil buu ahaa buu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo isu soo ekaysiiyey idan culammadu waxay dhahdaan ummu salama manaaqibteeda waxaa ka mid ah inay jibriil aragtay isagoo leh suuradii bini aadamka ugu yimi nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh haweenkii kale uu nebigu guursaday intaa aan soo sheegay haweeney horaba waa quraysh waa lu'ay ibnu khaalib bay wuxuuba isugu yimaadaana waa qurayshiyiin haweenkuu nebigu guursaday waxaa ka mid ah zaynab bintu jaxash oo banu khusayma ibnu mudraka ibnu ilyaas iyadu quraysh maaha zaynab bintu jaxash ayaa ka mid ah oo iyana uu carmal ku guursaday nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh dee caaisha mooyaane inta kabala carmal bay ahaayeen haweenayda tani iyaduna dhan kalena nebiga ilmaabti bay ahaayeen oo eedadii baa dhashay
umayma bintu cabdilmutalib baa dhasho nebiga ilmaaftay ahaayeen iyana waxyaabahay ku faani jirtay waxaa ka mid ah haweenka nebiga kale waxay odhan jirtay idinka aabbayaashiin iyo reerihiinna idin guuriyey anigana ilaahay baa iga soo meheriyey min fawqi sabci samaawaat suurat alaxzaab oo ka ilaahay kaga warramayo zayd ibnu xaarita markuu furay in nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi loo guuriyey oo alle u guuriyey waxaa ka mid ah haweenkii uu nebigu guursaday zaynab bintu khusayma alhilaaliya oo iyadana waxaa ka geeriyooday nebiga inaabtigii cabdillaahi ibnu jaxsh zaynabtan walaalkeed oo beder xaadiray dabeetana uxud baan rajaynayaa inuu maalintii uxud la dilay sanadkii saddexaad hijriyada meelahaasaan filaya inuu guursaday waxay ahayd gabadh aad u sadaqo badan oo umul masaakiin baa loo yaqaanay sadaqadii ay carruurta siin jirtay waana khadiijo dabadeed haweenkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenayda uu qabay ee isagoo nool geeriyootay haweenka kaloo dhammi nebiga way ka dambeeyeen laakiin gabadha tani waxay geeriyootay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh 2 bilood ama 3 bilood meelahaasuu qabay kadibna waaba geeriyootay ilaahay baa oofsaday waxaa ka mid ahayd haweenkuu nebigu guursaday juwayriya bintulxaarith oo bani lmustalaq qabiilkii la odhan jiray ka tirsanayd waa gabadhii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haabit ibnu qays intuu qaybta u helay dabeetana uu mukaataba la galay inay madax furasho bixiso iska xorowdo madax furashadii bay nebiga ugu timi waa heshiiyeen markaa nebigu intuu ka bixiyey madax furashadeedii oo meher uga dhigay ayuu guursaday saxaabaduna waxyaabaha allu ay ku faanto waxaa ka mid ahaa 100 reerkoodii ka mida baa loo xoreeyey markuu nebigu guursaday haweenkuu nebigu guursaday waxaa ka mid ahayd safiya bintu xuyay ibnu akhtab oo ahayd haween yuhuudiyada gabadh nebi haaruun ku abtirsata yahuudda ka mid ah sanadkii 7 ee khaybar ayuu guursaday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay culammadu yidhaahdaan 36 hijriyada meelahaasay dhimatay qaarna waxaabay sheegaan 50 ku dhowaadkii waa gaadhay waa xoreeyey iyada dabeetana cidqigeedii buu sadaaqeedii ka dhigay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah haweenkii kale uu nebigu guursaday maymuuna bintulxaarith alhilaaliya meesha la yidhaahdo sarf oo maka 7 mayl u jirtay iyadoo la marayo ayuu nebigu guursaday halkaasaanu kula aqalgalay kadibna halkii iyadoo maraysa haddana naftu ka baxday waxay yidhahdaan markaa gabadha tan halkaasaa lagu meheriyey oo lagu guursaday oo ay ku geeriyootay baa la yidhaahdaa waana gabadhii ugu dambaysay uu nebigu guursado salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo waxaan rajaynayaa xajatulwadaac meelaha agagaarkeeda waana gabadha laysku hayo mayadaa u geeri dambaysay mise gabadhii hore aynu sheegnay ee 62kii dhimatay gabadha tanna qaar baale 63kii bay dhimatay iyada ka geeri dambaysay gabadha tani waxay habaryar u ahayd oo walaasheed dhashay cabdillaahi ibnu cabbaas waxay kaloo habaryar u ahayd khaalid ibnu waliid iyo cabdillaahi ibnu cabbaas habar wadaag bay ahaayeen laba hooyo walaalaaba kala dhalay haweenaydan uu nebigu guursadayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh habaryartood bay ahayd marka intaa la tilmaamo 11kaasi dumara ayuu nebigu intuu guursaday u galmooday oo ay guri u wada hoydeen 11kaasi 2 isagoo nool bay dhinteen 9 isagoo qaba buu ka geeriyooday oo gadaashii ayay dhinteen intuuse meher ku xidhay intan way ka badantahay bay yidhaahdaan oo culammada qaarkood ilaa 7 kale ay sheegaanoo intuu meher ku xidhay aanu guri aanay wada gelin oo furay bay sheegaan sidii tii markii uu guriga loogu keenay tidhi ilaahay baan kaa magan galay uu yidhi dee cid weyn baad magan gashay iska tag iyo qaar la mid ah taasina waa cumuuman haweenkii nebigu guursaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilli wakhtigii nebinimada weli maynan gaadhin wakhtigiina saacaddii waa tagtay nus saac baa inoo hadhay waxaan isku dayi doonaa inaan bal markaa taariikh kooban tilmaamo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cahdigaasi nebinimada ka horraysay ilaahay baa dhowray subxaana wa tacaala oo gaalnimo iyo macaasida waaweyn midna kuma dhicin kacbadaa maalintii la dhisayay ee dhagaxa loo soo gurayey oo uu 35 jir meelaha marayo ayaa isaga iyo adeerkii baa dhagxanta soo wada gurayey dabeetana adeerkii baa ku yidhi meel yara koona iyadoo la marayo dhagxantii la gurayo say culammadii taariikh sheegaan xadiidka intiisan kale laakiin bukhaari soo aroorinaya
ayuu wuxuu ku yidhi war marada tan intaad furato dhagaxani wuu ku dilayaa iyo garabka saaroo isaga dhig marka cawradiisii wax ka mid ah baa muuqday dabeetana nebigu wuu miyir beelo wuu dhacay indhaha cirka u jeestay markii uu soo kacayna wuxuu soo toosay isagoo leh izaari hooskuntigayga siiya markii loo xidhay maalintaa kadibna isqaawis dambe iyo cawradiisa oo muuqata laguma arag nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh waa intii aan nebi aanu noqonin ilaahay markaa xumahoodii oo dhan wuu ka badbaadiyey xadiidka sheegaya inuu maalin aroos iyo meel laga tumanayay sidii tagoo caynkaas iyo culamo badan oo ahlu xadiid ka midi waxay qabaan inaanu asixin sida ibnu kathiir uu ka mid yahay inkastoo ragga badh xaakim iyo dahabi ay isku dayaan inay tasxiixiyaan markaynu soo duuduubno qabla nubuwa waxyaabihii uu caanka ku noqday uu nebigu sheegay dhagxan salaami jirtay buu ka warramayaa waa iska soo koobaynaa cahdu nubuwa ayaa nin kooban ka tilmaamay marka nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh waxyigu wuxuu ku bilaabmay culamada taariikhsay sheegayaan isagoo 40 jir soo gaadhay waxaana waxyiga ugu horreeyey riyada ambiyadu waxyiga ka mid 6 bilood buu riyo u imanaysay oo subaxina ka falaqi subax waagu markuu dilaaco sida loo arko kale uu arkayay kadib ayaa nabiga waxa la jeclaysiiyay inuu keligii meel iskaga cibaadaysto qaaru xira ayuu galay godkaas buu ugu yimi malakul jibriil waa kii gilgilay ee yidhi akhri ee nabigu waxa ma akhriyo 3 jeer markuu gilgilay kadib quraankii ugu horreeyay loo soo waxyooday iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam iyadana waxa la isku raacsiisan yahay maalin isniineed inay ahayd maalintii waxyigu ku soo degay maalmo kadibna waxa ku soo degay rasuulnimadii yani tan hore nebinimadii bay ahayd annubuwa maalmo kadibna waxa ku soo degay rasuulnimadii oo ilaahay leeyahay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahhir ورجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسينا وحي سوغا يا نبي الرسول لمدي سيو إلى هيلا يكاستودوب يو كع دق باليد وقت غير راحة يستودوب كو كعدا ماضي إن الدنيا دوردن أدو الرسول نغطو دين تقارسي سال غفرة كع دق وحلا فرين وألوين أيه oo dunida waxa kibriya sheegto oo dhan aan waxba u arag ilaahay oo qura inuu weyneeyo rabbaka fakabbir waxa la faray wathiyabaka fatahhir warujsa fahjur daahirkiisa iyo muuqaalkiisa sare iyo qalbigiisa iyo gudihiisa labadaba inuu daahir yeelo oo kan sarana najaasaadka iyo khubudka iyo wixii xun iska daahir yeelo qalbigiisana shirki iyo nifaaq iyo acmaal xun iyo xasad iyo xumo oo dhan inuu nadiif ka ahaado oo shawaa'ibtoo dhan uu ka nadiif ahaado waxa kaloo la faray walaa tamnun tastakthir inaanu manna sheegan gallad sheegan isagoo moodaya inuu camal badan qabtay ee uu arko xuquuqda alle subxaanahu wa tacaala inay mar kasta ka weyntay intuu camalka uu qabto iyo juhdi badan inuu bixiyo in looga baahan yahay waana waxa laga rabo qofka muslimka ee dhabta ah وويردا inaanu kula weynaanin waxoogaa khayrka aad samaysaa waxa loogu gabagabeeyay aayadkaasi inuu u sabro dacwada iyo islaamnimada wado waayo dadka canaadaya ka hor imanaya waxay yihiin dad dhib badan oo mushkilad badan baa wadadaasi kula kulmi doonta inuu sabro dacwada markii uu waday zaad ilaahay wuxuu siiyay yaa ayuhal muzammil qum al-layla إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد مركو صادري حول اللوم السعودي بين الله موران نقالها قاضوا ضدك دولة كوسمية يكو إسلام يكو malaa'ig laguma soo dirin oo laba oran malaa'igtaas kula soconaysa wixii ka hor yimaada iyaga madaxa ku dhufanaya askarta ka hayso waxa lagu yiri orodoo dadka u tago diin sheego dhis
ومحان دي ومضى كلا هرتقا محان هايستا إلهي كحران وهبينك يستقبل لي يا أيها المزمل وركستو دوبا يوبا الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كان استوضوبا يو هبينك انتي سبضان كعبا الليل إذا وحى النبي قال فرو زاد وأهنا إنه إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سبت صده دعوة إسلامي مركها وحي كتب قاب كاسئة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ده دورنا إنه نبي قودقه نبي صلوات الله وسلامه عليه سيد علماء تاريخ انتو دا بدن اي شيغيان صدح سنادود كواد دعودي سهوس هوس بيسغا وتي oo dadku xulanayay oo dadkii uu aqli bidee waaweyna ayuu gaar u la hadlayay balaadari ninka la yiraahdo isagu wuxuu soo naqlinaya 4 sano yahay laakiin ahlu taariikh waxay u badayeen inay 3 sanadood ahay dacwada bilowgay uu nabigu bilaabay salawaatullaahi wa salaamu alayhi qabiil gaara kuma yahayn quraysh waa 14 qabiil 14 reer bay ka koobatay 14 kaba si isleeg ba diintu ugu faaftay dadkii hore ee islaamay waxa kamid ah Abu Bakar oo taymi ahaa qabiilkiisu Uthman oo Umayyi ahaa Zubayr oo Asadi ahaa Ali ibn Abi Talib oo Hashimiya Mus'ab ibn Umayr oo reer Abdiddara Umar ibn al-Khattab oo Adawiya Abdurrahman ibn Auf oo Zuhriya Uthman ibn Mad'un oo Jumahiya يعني قبائل كي عربيدة كلا نوع طائفة دي وسووا كذا شقورة ما ينقونينه قريش هردم بكفافية خارج قريش ندد بدن عبد الله بن مسعود وهذيل أبا كمدة غير بن هذيلة عتبة بن غزوان ومن مازن أبا كمدة عمار بن ياسر ومذحجي أبا كمدة زيد بن حارثة وكلبي أبا كمدة طفيل بن عمر الدوسي أبا كمدة عبد الله بن قيس الأشعري قبائل خارج قريشة وينكون انترينينه مدمركي وكلي ذا كو ذينا كذب إلهي وحفر سبحانه وتعالى الدعوة الجهرية إسلام نمضى إنه كرق دواقه ضدورنا إنه ياره وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين إلهي وحيدي تلك قد دو ير تلك سدوا قريش أردن فحد كلو الدكتابة اللي محي فاصدع بما تؤمر waxa lagu faray ku dhawaaq ba Ilaahay yidho kor ugu dhawaaq dabeetana wuxuu nabigu bilaabay salawaatullaahi wa salaamu alayhi dadoo dhan inuu yeedho waa kii intuu safo koray yeedhay ee waa sabaaxa yidhi markii la isu wada yimi ku yidhi haddaan idin dhahdo buurtan dabadeed col idin weeraraya ka soo socda ma rumaysanaysaan haa markay ku yidhaahdeen nabigu wuxuu yidhi waxaan idinka digayaa عذاب إلهي وكليل بدن أيان دين كدقية وأمركم أبي الله كلها طبا لك لهذا جمعتنا وأرجع ما وهو كقوس ناضانه مو حسد نوجي يرسي إلى هنا سودة شيء تبت يدا أبي لهب وطب وأنك كلي قريش كم ده قرآن كاللغو مجعابي مجعي سين النار قليه حتى أبو جهل القرآن كم مجعابي لكن قرآن نبي محمد أدير كيبو شاقين وجهنم قليه نبي محمد أديرك يا أبي لهبة أي قرآنك شاقي ومقع كلي قرآنك كسو أراري باسمه انت الله شاقي الله تلمامي إنه جهنم قليه نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه دتكيسي نبي قوحو بلابي مركاين دتكو ويره ضد بدنين إسلامان وهريرها قبائل سركة ترسن نبي قوحو دتك ويره توحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وارددوا لا إله إلا الله دعوة الليبان الثاني ينوحي لها إن جعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب ورما إله يدي يرنب بمد قريس كقدق وروا وحلا ليا وحنو شيء يا نبي محمد بيلي إله يدي يرن حبت قرك صاغاضو وحلا ليا بابا ينتاجناي وحوي يدي ورا آخرة دمسا آخرة رمية إينا آخرة وابكوا عيارينا وحينا إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون وهدي أنو لمنه أعيد نقنه يلفه أئنا لمبعوثون
ما أنك أدبنا الله صلى الله عليه وسلم وك إلهي وضربنا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم أنا قلت صالة نوية ليبا إلهي أبورك سيروي إلا كي قال كي أنتو النبي قوي من لفق بابا أنتو سيدا يلو بربريي ودبيش الراعي بيقول مكوا صال هذا محمد ودب الله صلى الله عليه وسلم إلهي باو حلي أنا قلت صالة نوية لي أبورك سينا يسقوا إلا بيبا إلهي لي waxaad ku tidhaahdaaba ilaahay yidhi laftan marka horeba yaa abuuray qul man yuxyi alcidaama wahiya ramiim buu isagu yidhi qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara baa ilaahay yidhi kii markii horeba abuuray adigoo lafaa uurka hooyada un iskamaad geline kii marka horeba lafaha kugu kaa dhigay ayaa marka dambena soo celinaya baa ilaahay yidhi wahuwa bikulli khalqin caliim labadaa mas'alo quraysh waabay ka yaabisa tawxiidkana waa labada asalka u ah الإيمان بالله واليوم الآخر قرآن كمكي أنا هداد ركت الله بدا أري سئاد وبضم بيوصون قرية إلهي إلا الرميو إلهي ما الله الرميو إيا مال انت قيامه أحاديث النبي إن بضم ما تقارته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر للي والله بدا الشيء الركن هو عقيدة إسلامية وحكى لنا ميجا كان بالمال ولذلك توحيد كاسية البعث بعد الموت دينتي قريشات وكهريمي دبتنا النبي صلوات الله وسلامه عليه الدعوة دي سيبو بلابي دعوة داسي والدعوة الله قلت لقلي إن لغو أبورو أما لغو سمايو دادكي أمد المسلمين تاهو قامين لها ولذلك دادكا سماي نغنين داد ميل راحو إيان معالك وصوكري وحي هايان داد نب إيا مشكلة إيا ابتلاء تربضان إلهي سوى مريي إلا يلو بسليي إنay noqdaan dad dunida hogaamin kara yani hogaamintu wax fudud maaha ummad in la hogaamiya wax fudud maaha ummad ka kaalaya in dunidoo dhan hogaankeeda aad isu dhigtaana wax fudud maaha nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiisii waxay ahaayeen dadkii uu u tababaray inay dunida dhammaanteed hogaamiyaan abibakar leh cumar leh عثمان له علي له أبو عبيدة له سعد بن أبي وقاص له الرجال عشرة المبشرين كيله مهاجرين تي هرا له نبي صلوات الله وسلامه عليه فترة دي مكي جاهين مركه صدق هي طبعا صنادات أيو نبي مكة شوقي أو إلهي يدك ويري صدق هي طبعا كاس صنادات قريشي ويلا دجال لما يسي نوع والبنا ويكون دجال لما دجال دعايد يعيبينه ودتك بس أنا وربيسن مركي هرا وحيدا وروان نوالنا هلا هدلنا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون إلهي بك الجواب يا حلين والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما إلهي إن معدي سمرك يكوسو دكتا واللي إلهي إن معدي سلقوا وشبالة المامي بعيت المامي وبيناله والسحر وقال الكافرون هذا صاحر كذاب وقال الظالمون يتبعون إلى رجلا مسحورا بعيت المامي القرآن كان واشيك برلي وصار ما لها كسوروري وضدوا الشيخ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وبينه دتك هريه شيخ حريرتي هره وهبني مالين بالله شيخه إلهي سبحانه وتعالى وحاو نبي صلوات الله وسلامه عليه أي اسكدي أن من كقال ديني إن بدن كهر يمادان دينتي نبي أوليمي وحنا كلهر يمادان وح الله لي وحي أي أودان وأي دينتا كلهر من كران عيلة عيبين له بين أبورد له مرة يرهدان بالله علي يعني معجزات محي نبي قال نسكال لغينا يا ماد بير الذهب يوم دول الذهب يا قصند الذهب يا بير وين ماد لتماد مر أي سكوت ضيان مفاوضة واربلان هشين وضع هذا لو أدنى سوير الدبع ودوا لو تدينوا فيدهنون سوير الدبع أننا نكود دبعني مرة يسكوت ضيان القرآن كعايان مر ترغيب أي دهدان وحبان كسيرنا لالوش يلا عقيا بقر بانو كاردقينا هبلان كسيرنا إنك وقفي عن قريش بانو كاردقينا مرهن شبادي يقود يوا كدلينا يا صحابة الله تما الله عدادي الله عديديو يعني أسلوب كسته وحق لجاه هرتجي كرا قريش واستعماش
هدو دعاية هاي هدو سور دوين تهي هدي تهديد يقود تهي هدي مفاوضات يا وضع هذا الطي وحكستو حقا لو تشوشين كرو ويسقط ضيان نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومتشوشين إلهي كتاب يسمى ضدك ويانا حد بيجارسينيين أي حد يكون قبطان يسقط ضيان إنه باختيان أما استهزاء يندل ديل كوكا قالوا يسقط كعبة كسجود سن إن إفجال وركوشرتي أنت الله ساق هذا الدش لقى صاره الحديث في صحيح مسلم كقصة قناوي ابن عباس ابن مسعود نوي لاحظه وحنا درك بولي يعني قول النبي محمد أكتاجر وتمر يا إيطال عنها هنا وحكا قد عيو ودوش أوسك سارين هي بولي يا قريش نكو قصقص ليس أنا نكتب أنا وحبق بنكر لا يبولي نبي إله هنا أنت أوس دوش لقى صاري لقو قصقص ليو وقصقص الكيا قيلة دي أنت بدتين نبي قلنا سجود دي سكتوسين وركي فاطمة إن يرو قري قدي شوكته وقاري أو فاطمة يسوع عررت يدو إن يرو يدو هبارت بيسوع يسوع عيت بيسوع أنت يسوع قاري أي نبي أوسكي وحي كتشيد يسوع أو كم مرة يسوع نبي صلوات الله وسلامه عليه يعني ابن مسعود وحصور إياه سيدي لو حق بدنا لو تميي لو ما جاي يحال كيسو حتكو قاري ابن مسعود مالمي هرو يمي وكيس كديي دليرنimada inuu ka faa'iideeyo maalintu yimiba wuxuu yiri waxoogaa markuu joogay quraysh baan rabaa inta naadigeeda tago inaan quraanka maqashiyo dabeetana waxoogaa quraan uu soo xifdiyay buu kacbada la yimi quraysh naadigeedii fadhido kacbada hareeraheeda fadhida ayuu quraan ku dul akhriyay inta ay qabteen bay tumeeno garaaceen maalin dambe hadana yiri waa ku celinaya markaas la yiri war waxba ku celinaa yar iska fadhi quraysh waxba ku yeelimaysin tane آير فردي بالوجود نبي صلوات الله وسلامه عليه مركي دمه وحليه وحيدا رجع نقول نبي قاعدين اعتاقن أو السنة أو صيام على الله دوش الله صاريو وأنا نوحبه وقبان كار الله يبولي نبي صلوات الله وسلامه عليه نبي مركو مدة سقي الصحابة دي ساقو سقنايين مركي دمه وحلو سبيه عنقبتين دقالة وحن ما أنت الدنيا ده أتكلم قليسان ردمي ما ها تاريخ عصب إن الاستعاية إن ليلها مفاوضات يا وضع هذا ليه الشيء سير نحمره إن ليسوه جبل ليلها دوا إذا ليرنا إن ليس ظلميه إن وحاصر دمي تاريخ النبي هذا آخر ده وحما أنت تجوا وحفظت بكل النغنية إن عنقبتين دقالة اللي يسكسر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنت الرعدي وحلا يدعو عنقبتين دقالة وإحنا اللي جماعة يبين كره وإحنا اللي جماعة يفسن كره واللي بيجا وحلا وجود ضري دمر كان اللي جماعة جورسن كره عنقبتين تكمل ده عنقبتين تدقالة لمسور تبعتنا النبي صلوات الله وسلامه عليه هي أنت يريد الرأس ريد وكل شعب أبي طالب قلي غير بنو هاشم بل يسلق قدوميي مدة كدب شنطن إن أنت يسوط جين أي حلف جاه هشيس كايد هذا وروه هشيس باطل يدتكان أنك قادنا عنقبتين يعني قال هلا هذا قال هذا عنقبتين النبي كسر ده هذا قار كلام قال هذا كم ده أيوم باو أركي وحني بني آدم من محمين يتهاي ده بني آدم ولا لا يقاطع له مختيه إلى اليوم نواصديهم أنت كبرتنا وضد هبل هلا عنقبتيه هلا بختيه لنا واي ما يقار عقل كتشرو له وردت كان محل الله ينا يا الله بختينا يا ويا عقل بني آدم وحياب بني آدم تنمذا كم ده عدالة النوع كم ده عقله كتشرته سيدا وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه قدومنتي اللي سمينا قارون كمدا مشركين تيبا بريي او كتشري markii dhibtii muslimiinta ay ku badatayna waa kuwii xabashida u hijroobay haddana been baa faaftay quraysh oo dhammi way islaamto way soo noqdeen waxa la arkay inaan qurayshiba islaamin xaalku inuu sidii la isu dilayo sidii yahay mar kale waa kuwii haddana hijrooday ardil xabasha ku noqday dadka intii nabiga ku soo hadhay salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhibtii baa ku sii adkaatay xidhiidhku nabigu ummadaha kale la sameynayay reer madiina nimana waa kii xidhiidhka la sameeyey kadibna laba gooroo isxigta waa kuwii kooxa ka islaamay baycadii koowaad ee alcaqaba aluula waa kii qolo la galay 12 nina baycadii ku xigtay 70 nin rag ka badan buu nabigu la galay 70 rag gaadhaya intaa kadib waa kii muscab ibn umayr loo diray magaaladii madiina diin badani gashay kadibna nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi uu hijrooday markii uu muddo
ummadaha lahaa waryaa idifaacaya yani nebigu wuxuu soo bandhigay dadka fikrad ah yaa wax iga celinayo inaan ilaahay diintiisa sheegay mararka qaarkood bay dhacdaa in gaal uu magangeliyo siin karo qof muslima muslimiintii horena gaal magangeliyadii way galeen waxaa ka mid ah Abi Bakr Siddiq iska tag buu yiri xadiiskii Bukhari soo sheegay oo Makka iskaga tag nin gaalo ibn Abi Daghna la yiraahdo oo qabiilka qaaro la yiraahdo sayidkeedii buu la kulmay ninkii baa wuxuu yiri war adoo kale ma baxee nin fiican oo dadka caawiya oo wax tara oo caynkana dahday saad uga tagtaa Makka wuxuu yiri tolkay baa soo saaray ina celi buu yiri ma ku keena wuxuu yiri war reer Makka Quraysh odayadeedii intuu kaanu yiri dhageysta Abi Bakr ana magangeliye siiyay Abi Bakr ninkii taabtay anigu ma nustileena waa nin magantaydii taabtay xadiiska Bukhari waxay ku yiraahdeen sharti baan ku magangeliyada waa siinayna laakiin hal sharti ha yeelo quraankan iyo waxaanu dumarka iyo carruurta naga akhrinaya ha dhaafo gurigiisa ha ku tukado wuxuu doonaya ku akhriyo iyo kala soo bixi sidii buu magangeliyada ku qaatay Abi Bakr muddo markuu gurigii Quraan iskaga tukanayay ayaa Abi Bakr waxa la qurux badatay guriga finaagiisa hortiisa inuu meel yar ka dhisto masaajid yar oo ku tukado meel yar buu ka samaysto masaajida halkaas ku tukada nin buu ahaa markuu Quraanka akhriyo oo him badan oo cabsi badan salaad buu galay waa ooya Quraan badan buu akhriya dumarkii iyo carruurihii iyo reerihii jaarka ninkan banaanka ku tukanaya la isugu soo baxaa Quraysheeda waa la arkay waa la dhageystay Quraysh waxay yiraahdeen waa ka fidneeyay dumarkii iyo carruurtii ibn Abi Daghna baa war loo diro waxa la yiri ninkii diid wixii aynu ku ballanay ee laba mid ha yeelo ama guriga ha ku noqdo ama adiga magangeliyadii ha ku celiyo daan iska celinay ibn Abi Daghna yima wuxuu yiri Abi Bakr oo sidan debalkeenu ma ahayn ee wuxuu ahaa inaad gurigaaga ku tukatid ee laba mid yeel ama ii soo celi magangeliyadii wada Quraysh wakaas iswaajaha ama magantaydii ah oo gurigaaga ku tuko Abi Bakr wuxuu yiri magangeliyadaadii baan ku celiyay ilaahay baan magantiisa galayaa qaado magangeliyadaadana waxa kamid ah nabigu inuu Quraysh xajka marka la isku yimaado qabaa'ilka intuu yimaado baa oran jiray man yaawini hatta uballigha risalaat rabbi wariya ihoynaya yaa imarti gelinaya yaa meel igeynaya oo wax iga celinayaan ilaahay diintiisa dadka gaarsiiyay aniga yaa xorriyada inaan dadka wax gaarsiiyo isiinaya oo dhibta kale iga celinaya man yamna'uni yaa wax iga mancinaya muddo markuu nabigu sidaa ku waday salawaatullaahi wa salaamu calayhi ee cidina isaga magangeliyo siin weyday ayuu nabigu markii dambe ilaahay wuxuu ogolaaday subxaanahu wa tacaala inuu hijroodo waa kii soo hijrooday Makka Madiina ayuu yimi Madiina markuu yimina nabigu wuxuu bilaabay inuu dhiso dawladda islaamiga ahay wuxuu ka bilaabay masaajid inuu dhiso markuu masaajidii dhisay kadib wuxuu u jeestay maadaama dadka muslimiinta ay soo hijroodeen oo dhaqaale xumo jirto aanay waxba jirin inuu dadka muslimiinta xoog mid ah ka dhigo oo uu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin buu laba iyo saddex u walaaleeyo isku daray si mushkiladda iqtisaadiga ana walaalnimadu ay u xallisho quwwatu saacidna loo helo dadka muslimiinta in la walaaleeyo mid laga dhigo kadib buu nabigu wuxuu haddana dejiyay sida culimada taariikh soo aroorinayaan wasiiqatu taxaaluf warqadii heshiiska Madiina ee yahuudiya dadkii kale Madiina deganaa uu la galay oo ah sida Madiina loogu wada noolaanayo iyo sida loo wada deganaanayo dawladda islaamiga hadda bilatay sida ay u dhisnaan doonto intaasi waa hijradii iyo wixii ka horeeyo kooban tobankii sanadood ee ugu dambeeyayna nabigu wuxuu galay salawaatullaahi wa salaamu calayhi 27 ghazwada waxa la yiraahdaa dagaalkii uu nabigu raacay ama dagaal ha dhacaamayo dhicin 27 ghazwo ayuu 10 sanadood nabigu u baxay 27 ka ghazwo oo u baxay sagaal ka mid ah baa dagaal ka dhacay waa Badr Uhud Khandaq Qurayda Mustaliq
خيبر، فتح مكة، حنين يا طائف. تضبون بانا ووينا أولا يقاني تضبا غزوة أو وين باكرة أو معروفة أو قوة كان أو الغدر خندق أو الغدر بان تبوك لحقوان كمدة هي تبوك أي الله يقانا غزوات كالصبعة كبار تيوغوا وينا waxay yidhaahdaan laba gooroo kaliya malaa'ig dagaalka ka qayb gashay waa badar iyo bay yidhaahdaan iyo xunayn ayay dagaalameen ka qayb gashay maaha ayay dagaalameen malaa'igtu marna waxay yidhaahdaan way gariiriyeen oo halaag kale iyo baqdin bay ku rideen waa khandaqa aw ghazwat al-ahzab laba dagaal oo qura fatxi weyn dhacay oo xoolo badan la furtay waa badar iyo xunayn hal dagaal oo qura madaafiicdii waqtiga jiray uu nabigu ku dagaalamay oo manjaniiqa waa xisaaru taif hal dagaal oo kamida buu nabigu dhufaysay qotay waa khandaqi ghazwatul ahzab umuman dagaaladiisa 720 ka asaas bay taariikhiyahanadu sheegaan waxa uu nabigu diray tira ku dhadhow siday taariikhiyahanadu sheegaan 38 sariyo sariyadu waa kooxda gaada ama koox mar dagaal gasha ama war keenta ama kooxun muhiimad dagaal loo diray 38 sariyo ayaa kamida waqtigu waa iska dhamaaday waxa soo dhan markaynu soo duuduubno waxa ka asal ahaa diinta in la faafiyo faafinta diinta la faafinayo kelimada ilaahay dadka la gaarsiinayo ayuu nabigu naf iyo nafisba u bixiyay taasana saxaabadiisa lagu laayo markastana u diray khatar baa jirtana nabigu uma joojin dacwada midalan hadaan laba sariyo sariyaadka kamida tilmaamo rajiic iyo bi'ru mauna koox tobana buu nabigu diray tobankii waa la khiyaamay qabaa'il baa dagaal la galay oo khiyaameeyay dabeetana way isugu yeedheen oo waa la laayay toddoba kamida markii la dilay saddex bay yidhaahdeen isdhiiba waxaanu idin siinaynaa magangeliye saddexdii nin markay siraahin isdhiiba bay xadhig ku bilaabeen inay ku xidhxidhaan mid kamida yidhi waana khiyaamaysan oo haddana dagaalamay isna waa la dilay labadii kale ee soo hadhay quraysh oo badar lagu laayay ayaa la yidhi yaa aabihii u aarayo laga iibiyey iyagoo maxaabiis markii hore nabiga inta loo yimaa la yidhi cid quraanna bartana siiyo 10kii nin uu nabigu ku daray wasaasa loo laayay iyadoo 10kaa la laayay haddana qolo kale u timay tidhi diintii baanu rabnaa inaanu baranno ee cid kale nagu dar 70 nin oo kale nabigu ku daray 70kii kalena qabaa'il baa u heshiiyey oo iyagana waa la walaayay عمر بن أمية وكبح صدي يعني النبي ما أوران صلوات الله وسلامه عليه مركي هراء تومبال اللي قال له نن ضبدر مايو وخطر دعوة كم مهم سن خطرت واحد لو قال لي مركي إني دين تاني فافته ولذلك ما يدو تبن للدلي أيو دعوة الدري يدو تدبات للدلي أيو هدنا الدري تدبات كمركي للدلي حنون كي النبي يكون رابطي bilbu gacmaa cirka u taagay salaad kasta uu galo ilaahay bariyay oo habaarayay racl yadakwaan iyo usaya saddexdii qabiilay isugu tagay bilbu nabigu salaadaha dhan qunuuday oo laha ilaahay adaan kugu eegaya racl yadakwaan iyo asiya ilaahay rasuulkii bay caasiyeen waxay kaloo qaswadaas tusaale u tahay nabigu qaybka wuxuu ka ogaa hadduu 10 diray oo laga laayo 70 kale haddana ma iska diri lahayn la soo laayo amaya duu qayb ogiyay raggu bil ilaahay u baryayay iskama direen laakiin walaw kuntu a'lamu al-ghayba lastaktartu min al-khayr ba ilaahay waxaad ku tiraahdaa uu qayb waxba kama ogi laakiin haddaan qaybka ogahay khayr kaan badsan lahayo sharbay ma taabteen dhaba ilaahay waxaynu ku soo koobaynaa waqtigeena uu dhan yahay نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي بقى دورتي وشخصية الله دورتي بوها وحانا الله دورتي إنه وحيقا حنبارو دادك قارسيو قارسين تاسنا وحو ودي اللباطن إيا صدح سنة دوت
labaatan iyo saddexdaas sannadood daraasadoodu waa diintii oo dhan oo camal ah waxa quraan iyo xadiis la sheego oo dhami labaatan iyo saddexdaasay soo degeen siiradu markaa waxay tahay quraan iyo xadiis kasta uu nabigu yiri meeshuu ku yiri iyo sidii loo camal galiyay oo waa quraan iyo xadiis ka dhaqmaatikoodii idan aad bay muhiim u tahay qofka muslimka 23 sannadood inuu daraaseeyo 23 sannadood ee noloshii nabiga ka mid ah inuu daraaseeyo aad bay muhiim tahay waa 23 sannadood ee waxii soo degay waa 23 sannadood ee diintan la dhisay waa 23 sannadood ee taariikhda bini aadamka ba bedelay ila qiyaam as-saa'a 23 sannadood wuxuu nabigu dhisay ba bedelay hadi waahida kalabaad aan rabaa waxay tahay waa 23 sannadood oo isku xidhiidhsan oo tilmaamaya qofka muslimka ah meeshuu ka bilaabay halku wax ku dhamaynayo dul baa raba iyagoo aan dadkaba ku odhan laa ilaaha illa allah tuflixu inay dawlad islaam dhisaan dul baa raba bayna cashiyatin wa duhaaha habeen iyo maalin gudahood in diintu isku wada taagto iyadoo aan loo dhiman oo nafi u bixin oo loo soo halgamin oo la soo wadin 13 sannadood uu nabigu maka joogay salawaatullaahi wa salaamu alayhi dib oo dhan baa ku timi laakiin wuxuu caan ku ahaa طريقة الدين تبرب كم وعن صدح شيء أو دعوان الدين كدقية حلقة مكي جواد موضوع حلية ده هذا اللي قلت رصادتك الله استضعف صدقين بدنا حلقة وقت صدح ده الشيء دعي وحكم ده ضدك برد درب جاي ماذا حقول لفتان دبتنا وابي الشكيان واحد وروح إنه صعد ما يسوي أنا الوريرينية مبادئ ده حبرتين بوي كشكيان marka la islaayo la saadhidheela ay mabda aba ka shakiyaan dabeetana way ka dhacaan ilaahay baan ka baryaa inaanu inaga mid dhigin dadka bad markay adkaatay degdegaan oo yiraahdaan intee la fadhinaya war madaxa inoogu rida shooladaan ugu dhacno wuxuu waliba iska hagaagi doonaan waa ku nabigu kulaha walakinakum qawmun tasta'jiluun dul degdegaya baati إذن قلدا تنازلات كسمايسة أما مبدأ أبا كشكده أما آير كأو تنازشه هي قلدا دقدقته صدح ذاك واحد ميدنا ما فينا إما أنا الشكده مبادئ أبا كشكيه وكتغه أما بعضها تنازله سوء تنازل يمنع الله وقرعه إما إنه دقدقه ومرأة أم بسلانه وسكت ضيانه قوستو دربك ماذا حكون نفطه كصدحات وحيد هذان ومسألة اليأس وعدم الأمل دول لو حكون دعاه مبادئ ده ولا عقيدة ده إن يستحيين كما يلومن لكن هو ضعيف أو حسن هذا ده إسكسوكونا برجي له هي فرج كفر يضمر كي عررت هذا سكيل عشو أنت على فرج كفر يو يعني يأس باكون دعاء وحبا حقيقين كرين أمل كوايا رجد وايا مركو الرجو وايا حتى هذان عقيدة دي كبحنا iska haysabu isiraahdaa unda kitaabkaaga iyo sunnaaga bal reerka inta iska dhaqi karto iska dhaqo amalkiiba ka taga saddexda shayba waa baatil shayga rasmigiina waxa weeyaan tii ilaahay quraanka ku lahaa fastaqim kama umirt fastaqim nabigu wuxuu la shayabatin yahuudan wa akhawatuha markii ciradee ku yaal waxay cireeyay buu nabigu yiri huud iyo walaalaheed maxay sheegayaan وفاستقم كما أمرت توصنوا سيدي لغو فري وحبها وعوعن وقت يورد ماضي تاريخ دي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إن ساعد يبرد لغو الشيغو ويكبر لارنتي لكن وحنا نقول دار مياه إن آدوا الدراسيسان أول بقى الدراسيسان تاريخ الصحيح هي سنة كذا الله هو يعني خزع بلادك شيكوين كحريرته لغو قرقرحيي اسكا داف تاريخ رسمي قابا كوفلان كتاب يسنكو صاررتي والله اعلم بالله